بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، weli waxaan ku dhex jirnaa youtube-kii sheekh xasan ibraahim ciise. khaasatan waxaan kaga dhex jirnaa qeybihii su-aalaha iyo jawaabiga diiniga ah. 25 waaye bisha 7 maanta 2020, waana maalin sabti ah. 6:13 aroornimo ayaanu markaa maraynaa. ilaa xaqa waxaan ka baryaynaa inuu xaqanana waafajiyo, arsaaq xalaal ahna uu nagu arsuqo, dadka muslimiinta ee dhibaataysanna meel kastay darafka caalamka ka joogaan inuu ilaahay dhibka ka bixiyo subxaanahu wa tacaala. asagaa kari karee awoodi karee. su-aasheeda koowaad buu yidhi: assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu. sheekh, su-aashaydu waxay tahay, hooyo ayaa mar dhow aasay hooyo ayaa mar dhow asaay ka degid rabta. maxaa looga baahan yahay? maxaase ka reeban? allah ha ku barakeeyo adduuniya aakhiro, allaahuma aamiin. ilaahay baa mahad iskale marka hore oo asayda u fududeeyey. inta u dhimanna ilaahay waxaan uga rajaynaynaa si sahal iyo suhuulo ah inuu ilaahay ugu dhammeeyo subxaanahu wa tacaala. intaa kadib qofka asayga ka degaya, waxaan naqaanaa dhaqan iyo caado iyo hido in lasoo digo. asay deg baan qabnaa, asay deg baan qabnaa. sida arooskaa loo digaa maanta asay dega. waxyaabo maa anzala allahu biha min sultaanna waa lagu sameeyaa, aan ilaahay waxba u soo dejinin. caag saliid ahaa hooyada lagu dhex shubaa inta baaf lagu fadhiisiiyo. ummadiiba isku timaado way la soo xoomaa, xoolaa la qalaa. intaasoo dhan waa bidca, waa waxaan waxba ka jirin, waxaan diinta islaamkaa sal ku lahayn. hadday saan kusii socoto oo aan laga horteginna, waxaan ka baqayaa mar dhow in inta culimada loo keeno warqadaha imtixaanaa lagu magacaabo invitationka ee aroosyada lagu galo, in inta naloo keeno nala dhaho asaadega maalin hebel, hool hebel, waxa hebel. ilaahay baan ka baryaynaa in wax allaale waxaan diinta ku tacalluqin oo naga ilaaliyo. qofka asaayda ka degaya waa inuu qubaystaa, uu mayrtaa. 2 rakacadood oo shukri ah haddii uu tukado, waa ilaahay mahadi, ilaahay ugu dhameeyey sameeye sacaado. waa inay isqurxisaa, waa inay catar marsataa, waa inay dahabkeedii xirataa, waa inay dhar wanaagsan xirataa, waa inay soo nuurtaa un. waa inay diyaar u ahaata in la guursado ee markaa lasoo doonto. wax kaloo asaadhig lagu sameeyo haba yaraatee diintu ma qabto. umu xabiibe aabeed markuu dhintay 3 maalmood kadib ii keenay tiri bahalka catarka ah, dhinacyadii ii daamankay marsatay. waxaan saa u yeelay bay tiri udugdan ka malihiye rasuulkan maqlay oo dhahaya qof axdaad iyo asaay uma qaadi karo qofka dhintay wax ka badan 3 maalmood ilaa zawjka ma ahane. 4 bil iyo 10 beri ayaa asaga loogu talagalay in asaay loo saarnaado. intaa kadib asaadegeedii aabaheed ay uga degaysay waa 3 maalmoode waxay ka dhigtay inay meelahaan iscarfisa keliya. marka ummadda yaan la dhibin walaalaya. naagtan 4 bil iyo 10 beri bay dhibaato ku jirtay, way basaasnayd, murug baa haysay. waxa uga murug badan asaydega waxyaabaha la qali doono. saha laga dhaafo ummadda, rabbi ha loo soo laabto subxaanahu wa tacaala. su-aasha labaad: assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. sheekh xasan ibraahim, alla weyne ha ku barakeeyo, allaahuma aamiin. aakhirana rabbi jannadiisa firdows ha kugu abaalmariyo, allaahuma aamiin. sheekh xasan, waxaan qabaa su-aal ah, waxaan imaaday magaalo, waxaan
ii yimid maamo Soomaalinimo igu soo raadisay, waana isoo dhaweysay, weliba si wanaagsanba ayay ii soo dhaweysay. maasha allah, allaha ka ajir siiyo. Markaan dhowr bilood isnaqaano ayaan maalin isdhahay dheh, maamadii qofka fiicnayd ahayd, soo salaan, gurigeeda ugu tag. Markii aan u tegay, wejiga ayay ii beddeshay. Anigana waxaan ku dhahay, habar yar, miyaan xasuusan tahay? Maanta farxad kaama muuqato. Ma xanuunsan tahay? Maanta farxad kaama muuqatee. Markaas ayay igu dhahday, maya. Aniga waxaan ku dhahay haye, waan sii baxayaa, ee cafis iyo caafimaad ayaan isku ognahay, ee assalaamu calaykum. Haye ayay igu dhahday, iyadoo aan ii faraxsanayn. Kadib dhowr maalin kadib ayaan haddana wacay, blog ayayna i saartay. Wallaahi maamo aan aqaano waxaan ka sameeyey maamada. Sheikh, mana jecli in qof muslim ah iga aamusnaado ama aan kala aamusnaano ilaa haddaan maqan. Waxaan sameeyana waana qof macnaha ma aqaano waxaan sameeyo. Waana qof keliya maanta adduunka aan ogahay colaada ii qaba. Ee aniga dembi miyaa iga soo gaaraya maamadan aan aqaano? Wax aan ka sameeyeyna aysan jirin. Maxaase sameeyaa? Ila tali Sheekh Xasan Ibraahim. Allah weyne ha ku xafido adduun iyo aakhire. Dadka bani aadamka ah waxaa ku jira shaytaan wax u kala qaada. Dhibaatooyin fara badan ayuuna ku sameeyaa bulshadii ummadda dhexdooda. Shaytaanka rasuulka sallallahu calayhi wasallam kama cabsi qabi buu yiri, arrin buu sheegay. Laakiin waxaan idinkaga baqayaa shaytaanka inuu idinku sameeyo shay wax lagu magacaabo macnaha isku dirid iyo arrimo noocaas oo kale ah. Maamada waad isbarateen, waxaad isku tihiinna ma jiraan. Haddii ay ahaan lahayd qof qaraaba ah, qasab bay kugu ahaan lahayd ayadoo saas ah inaad xiriiriso say diintu qabto. Ama middan waxaad idinka dhaxeeya waa salaan iyo iswanaajin. Adiga ha kaa timaado, haddii jidka ay kaaga hor timaado, qalbiga waxa ugu qaadin. Wax kaloo dhibaataa markaa ma jiro. Waad fiicneed inaad sii waraysato, maxaa kugu dhacay, maxaa saa u yeeshay. Waxaa laga yaabaa hadal inta in lagaa qaado lagaa gudbiyey ayadana markaa loo geeyey, taana ay u qaadatay arrintaa. Saa darteed bloggana lagu saaray, lagu soo dhaweyn waayey, wejiga lagu bedelay. Haddii la tixraacana meel cidla ay markaa soo baxdo. Marka isku day saad ku ogaan lahayd. Teeda kale, qalbigaaga xumaanta uga bixi, u wanaaji. Haddaad la kulantana assalaamu calaykum, intaaba idinka dhaxaysa. Su-aasha saddexaad, macnaha qaybta labaad ee su-aashii imtixaanaa ayaa socotaa. Su-aasha labaad, Sheekh Allah ku xafido, weligay aniga salaad ma hilmaamin. Aniga niyadda ku hayo waa iga tagtaa. Mid kale, Sheekh, dembi walba oo aan ku dhaco haba yaraadee anigoo og ayaan galaa, waayo kama noqdo qaafil. Wax walbo dembi ah markaan isdhaho samee, cabsida alle ayaa niyadda iga soo gasha. Marna waan baqaa oo waan iska daayaa, marna waan ku dhacaa, ama marna waxaan ku dhahaa. Dadka waxay dhahaan marka dembi galayo isma oga oo ma moogaan ka ahay, balse aniga weligay dembi mooge kama noqonin. Wax walbana waan xusuustaa intaan gelin ka hor. Mar waa ku dhacaa, marna waan iska qabtaa. Sheekh, maxaa keenaya midda kale? Weliba isdhahaa dembi kuugu badan miya, mase iimaanka kaa nusqaansan? Waana baqaa markaas camal oo aan aakhiro iyo alla weyne ayaan xusuustaa, waana iska ooyaa. Sheekh, qoraalkan kugu dheereeyey, igana raali noqo. Qofka marka uu dembi galayo, saa sheegtay waaye sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala, inama atawbatu cala allah
liladiina yacmaluuna asuu bijahaala. marka bijahaala marka la leeyahay maha qofku inuusan ogeyn waxaa inay dembi ahayn. bijahaala marka la leeyahay maha qofku inuusan ogeyn waxaan inuu ilaahay diiday. caalimka ugu sarreeya hadduu yahay, diinta si fiican u yaqaana, dembiga ku jira, xilliga uu dembiga ku sugan yahay bidarajati jahli baa lagu xisaabaa. waa ogyahay waxaan inay mamnuuc yihiin, waa ogyahay waxaan inay xaaraam yihiin, haddana ilaahi subxaanahu watacaala inuu diiday waxaan wula socdaa. waa loo sheegay, qur-aankuu ka arkay, haddana inuu ku dhaca suuragal ah. waata xadiisku tilmaamay zaanigu ma zinaysto asagoo iimaan leh, tuugu ma xado asagoo iimaankiisa leh. waayo xilliga uu saa ugu jiro dembigii macaasida iimaankiisa ama waa nusqaan ama waa laga siibayba. saa darteed ilaahi subxaanahu watacaala hana cafiyo. bani aadam dhammaantii waa khata walaal, wa khayru lkhataa'iina atawaabuun. inta dembiga gashana waxaa u khayr badan inta markaas soo noqota, sida rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam. su-aasha afaraad: assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuh. sheekh xasan, laba su-aal ayaan ku weydiinayaa. midda koowaad, waxaan joogaa waddan qurbo ah, waqtiga iyo saacadaha way isbedeshaa. marka soon ama qallo laygu leeyahay lama sugi karaa waqtiga intuu yaraanayo oo saacadda iska bedelayso. midda labaad, waxaan ahay gabar kuma soo marin farjiga hoose. waxaan ahay gabar kuma soo marin farjiga hoose, waxaa iga imaada wax cad oo isjiidjiidaya. waddankii markaan joogay waxaa laygu dhahay waa infection, daawo badan markaan qaatay isbeddel ma lahan. waddamadan markaan imaaday ma qabtid ayaa laygu dhahay. markaan salaada ku jiro way iska imaadaan, iyo 3 waqti. markaan dhaqaayo waqti badan ayay iga qaadataa. xitaa dadkii musqusha igu dhibsaday marka ma ku tukan karaa waysada? ma iska jebinay? iga raali noqo sheekh, hadalka aan soo qoray wuu dheer yahay. qeybta koowaad, saacadaha fog. qofka bani aadamka ah waa daciif sida ilaahay tilmaamay subxaanahu watacaala. xilliga soonka ah ma aqaansay kusoo aado. waxaa dhici karta inay kusoo aado saacad dheer, saacaddaa dheerna uu qofku ku soomo. qallada guditaankeedana waxba ma dhaanto. qof kasta qof kale intuu ka dadaal badan yahay, ka cibaado qabasho badan yahay, ka saacad dheer yahay, wuu ka ajir badan yahay. haddiina la dhihi lahaa saacaddaas iyo saacaddaa iyo intaa shaqo qabta, intaasoo dolar baa laydiin siyaadinayaa, ma fiirin lahayn waqtiga badnaantiisa. laakiin jannadii iyo wanaaggii baanan anagu arkayninoo tii adduunka markaa noo muuqataa. haddii aad samayso wax dembiya kuma sugna, kullay qallada inaad guddaa markaa lagaa raba oo lagaaga baahan yahay. teeda kale waxaa meesha imaanaya maalmo kale sida carafo oo kale, muxaram oo kale, saacado mataqaanaa waxaa jirta mawaasim khayr ah. qofkana inuu waajibka iska bixiyay ku fiican tahay, kuna fadli badan tahay. taasoo kale maxaad ka samaynaysaa? waqtigii intaad dib isku dhig leedahay, adoo kari kara inaad soontid, haddii geeridu timaado ayadana dhibkeeda markaa leedahay, waa xaalad kale. laakiin wax dhib ah markaa kuma sugna inuu qofku dib u dhigto oo la dhihi maayo maxaad gadaal ugu dhigatay. qalladii haddii markaa uu gudo, ilaahina markaa gaarsiiye subxaanahu watacaala. teeda kale, haddii waqtiga dheer uu ku dhibaayo oo aadan kari karin, laakiin aad kari karta waqtiga gaaban, markuu soo gaabto inaad soomi kartid, laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha. taana markaa way jirtaa insha allahu tacaala. infectionkii waxaan farjiga ka yimaadaa soo haray, waxaad samayn kartaa musqulaha intaysan dadku u baahanin ka horgal, si fiican isku nadiifi, intaa kadibna waysqaadee salaadaada tuko. kuma tukan kartid wax haddii ay kaa yimaadaan ilaa inaad dhaqdo oo kadibna aad waysqaadata maahane. qofka xaalkiisu sidaa yahayna waa inuu waysaqaadka salaad kasta u weyse qaataa. infectionkii waxaa soo baxaya mar walba waa layska nadiifiyaa, kadib ayaa markaa la weysaystaa lana tukadaa. su-aasha shanaad: assalaamu calaykum sheekh xasan, waxaan ku weydiinayaa daawada dumarka
loo soo qoro hoos la marsado ma ku tukan kara iyadoo ku marsan. Weysqaadku haddii uu dambeeyo wax dhibaato markaa kuma sugna. Teeda kale haddii qofku saa u marsanayo si ixtiyaad loo helo salaado fog marso, markay salaadu soo dhawaatana iska dhaq, kadibna weysayso, kadibna tuko. waa sida ugu axsansan uguna wanaagsan. Su'aasha lixaad, sheekh assalaamu calaykum, waxaa jira ilmo ayagoo gudan dhasha, sidee laga yeelayaa? diintuse maxay ka qabtaa? way iska dhacdaa, wayna jirtaa ciyaal ayagoo gudan markaa dhasha. haddii xaaladdu noocaa noqoto, waxaa aad loogu badan yahay oo sida saxiixa la tilmaamayo, ilaahay baa ka kaafiyey subxaana wa tacaala, sidiisaa loo dhaafayaa. gudniin baa la rabay, ilaahay subxaana wa tacaalana khalqigiisa wuxuu keenay asagoo gudan inuu adduunku markaa yimaado. saa darteed saasaa loo dhaafayaa. culimo yar oo kasoo horjeedaa jirto dhahaysa waa la gudayaa. maxaa laga gudaya? wuu gudan yahay. xataa masakiinta iyo waxyaabaha la marmarinayaa. ninbaa xilligii taabiciyiinta ama saxaabadu ay joogeen canugiisii dhashay asagoo gudan. shiiqiibuu u tegey, markaasu waan walwalsanahay. oo maxaa kaa walwaliyey? canugeygiibaa dhashay asagoo gudan. oo ma waxaasaa laga walwalaa? ilaahay baaba kaa kaafiyey gudniinkiise. marka qofku xajinayo madaxiisana aysan timo lahayn, axkaamtu waxay tilmaamaysaa in marka xirashada la gaaro sakiinta uu marmariyo oo sidiisa uusan u joogin. saasoo kale qiyaas uga soo qaataan, saasay markaa leeyihiin. laakiin sida ugu fiican waa in sidiisa loo dhaafo. ilaahayana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala. su-aasha lixaad toddobaad baan dhihi lahaa, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sheekh xasan ibraahim, waxaan ahay qof mar kula soo hadlay, waxaan ku weydiiyey su-aal. waxay ahayd su-aasha aan ku weydiiyeyna, sheekh waxaan ballan la galay ilaahay. waxaan dhahay, ilaahayow caafimaad isii, xanuunkan aan mar labaad ha igu soo celinin. waxaan ku ballan qaadayaa inaan maalin walbo 2,000 oo istikfaar ah inaan sameeyo. laakiin waan awoodi waayey. wallaahi waad ila talisay, anigana waan isku dayey, laakiin sidaan ballanta oo u qaaday ma ooga soo bixin. sidaan alla ballanta uga qaaday mararka qaar waqtiga ayaa igu yaraada oo waxaa laygu gaaraa maqrib. aniga ballanta aad ayaan ugu murugay. wallaahi mararka qaar naftayda waxaan weydiiyaa, maxaad ballantaas u gashay adiga oo og ilaahay inuu caafimaad ka bixiyo? waan ku fududaaday. sheekh waxaan rabaa inaad wax iga dhahdo arrinkaa. aad baan uga murugaysanahay. insha allah ilaahay ha ku xafido, ilaahay khayr ha ku siiyo. sheekh xasan ibraahim ciise, jannada ilaahay ha kugu casumo ama ha kugu deeqo ama ha ku geliyo. اللهم آمين آمين آمين. وعسمينيسا بعدما حالته سداتا 3 maalmood صون استغفارنا إلهي ويديس سبحانه وتعالى. maalintiin intii aad awoodo markaa ka istighfar إن شاء الله تعالى ربنا هكا أقبله إلهينا هكو فضوذيو waayo wax anaga dhibkeena iyo rafaadkeena iyo waxeena إلى سبحانه وتعالى دينتنا ما كدغين دينتنا يسر إفضل بمركا إلهي كدغي سبحانه وتعالى. سؤال سيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ سؤال أيانكو ويدينيا، محذورك وحان إيغو معذورك وحا أغو ظاهر سنجري لحبري، لكن هذا وحان أغو قبيستا تضوى الموت. waxaan u malaynayaa 6 beri inaan joogo. maalmo kadib ayaan ogaaday inay ahayd 7 beri. sheekh maxaa layga rabaa? allah ku barakeeye. istighfar iyo toobad la imaanaysa. dhiiga macduurka gabdhaha waxaa loo baahan inay iska hubsadaan. 6 buu noqon karaa, 7 buu noqon karaa, 8 buu noqon karaa, 3 buu noqon karaa. mar walba inay ayagu control ku sameeyaan oy markaa ogaadaan waa lagama maarmaan. su-aasha 9aad, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. sheekh su-aal labaad ayaan ku weydiinayaa. gabar aabeed haddii uu siiyanin sidaas miyay ku mehersan tahay? iisoo jawaab sheekh. allah ku barakeeyo, khayr badanna allah ku siiyo. sismadaa laba marna waa meher marna waa kuu joogtaa baa la yiraahdaa. dhaqan iyo caado markaan fiirno Soomaalidu waa in aqyaar ay baxdo
ninka aabbaha gabadha dhale loo tagoo la dhaho intaana waa doontii gabadhaasaa u baahannahay waa idin siiye buu yiri waa idin siiyadu maxay ka dhigan tahay oo loola jeedaa waxay ka dhigan tahay oo loola jeedaa waa idin joogtaa sababta hadalka dambe la raacsiina wuxuu noqonayaa goormaa soo diyaar garoobaysiin goormee diyaar tihiin goormee ducadii keenaysiin markii inay weli tahay yaan markaa qaadanaynaan qiyaasanaynaa meher markuu dhaco ama uu dhaho meherkii waa la sameeyey ama aabbaha uu ku dhaho mtaqaanaa wiilkii gabadhaydii waan kugu mehriyey ama alfaada loo isticmaalo in gabadhan in la mehriye ay tilmaamayso xaaladda noocaas oo kale ah waxay noqonaysaa in marka ugu meher noqdo laakiin waa ku siiyey macnaheeda anaga da'bi ahaan marka la fiiriyo waxay noqonaysaa waad soo doonateen wayna idin joogtaa maalin maalmaha kamid ah wiil ii yimid markaasuu idhaaniyo gabartaasaan rabaa inaan doonto diintuna waa ku siiyey haddii la dhaho waa qabtaa waay macnaheeda iraac laba nin buu watay anigu waan ka diiday marka hore ilaan dagid waaye waa khiyaano la rabo aabbaa in la khiyaano way soo raaceen haye gabadha waa idin joogtaa waa idin siiyo yiri laakiin soo diyaar garooba taasaa wuxuu ku doodayaa waa naagtaydii oo garbay naagtaadu noqotay haddii saa la yidhaahdo ragga inta badan waxyaaba aan wanaagsanayn waxaan waa guur waa kow caruur baa imaanaysa waa labo aabbihii ma fahamsana xaaladda noocaana naftigeeda hadduu fahamsanaan lahaa waxbay ahaan lahayd kuma dhihi lahayn asaga laftigiisa marka khiyaanada aad ha loo joojiyay insha allah ragga gobol kamida ayaa arrintaa isticmaala haddii kale waxaa dhahda aabba ma igu mehrisay gabadha xaaskaygii miya laba marqaati ma la doonaya gabartii shaah buu la cabaya wuxuu leeyahay gabadhaadaan raba gabadhi waan ku siiyey laakiin soo diyaar garow gabadhi waa ku siiyey gabadhi waa bixiye buu leeyahay aabbihii laakiin ma ictiqaadsana inuu markaa meher yahay marka dadka si fiican ha loo baro ama khiyaanada ha laga dhaafa insha allahu tacaala aabbayaalka su-aasha 10aad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ الله كحفظ الدنيا آخرة اللهم آمين شيخ وحن وتا سؤال قف أيان بلان لقا كقاضي سيدو كلا الله أيان التوبة كيني كان بلان قاضي إنان كفقانايو قف كستا أصحاب تيدا كمدأ أو حمان تاسي عن كتوبة وحرها لهذا قف أيان بلان كقاضي sidoo kale alla ayaan u toobad keenay kana ballan qaaday inaan ka fogaanayo qof kastoo asxaabtayda ka mid ah oo xumaataas aan ka toobad keenay ku jira oo ii horseedi kara inaan ku dhaco xumaantii mar kale ama aan xasuusto marka sheekh maxaan sameeyaa qofka aan ballanta ka qaaday waa dadka inaan ka fogaado aan alla uga ballan qaaday sidoo kalena qofkaasi asna ballan hore ayaan ka qaaday inaan ka fogaanin ku soo celi su-aashan insha allahu tacaala qofka su-aasha noo soo qoray su-aasha 11aad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sheekh xasan ibraahim ciise ilaahay ha ku barakeeyo adduuni aakhiraba wacalaykum assalaam baan ku leenahay اللهم آمين إلهي كتابك جميل تهكاسية اللهم آمين دذلك عاد إنه هيصو إلهي هكو بدلو أجري حسنات اللهم آمين واللي بأجري حسنات كاسون لسوكوبي كرين شيخ وعنكو يدينا يا أنا طاهر أهين قرآنك مكا أخرسن كرا موبل كان قرآن مكا أخرسن كرا سي عادي موبلك وحيابها هذا قرآنك اللي قصوا الشبي إيميلها اللامدك waa aalada ziyaadaha keenay dhibna waa jiraan dheefna markaa way jirtaa musqushii baa lala gelayaa dadkii way ka shakisan yihiin sidee markaa la yeelaa mararka gobol ka mid waxaad arkaysaa dad qur-aankii akhrinaya masxafkii masaajidka saas u safan yahay u wada taagan yahay qof kasta mobilkiisu haystaa marka gobol ka mid mobilka kaliya lagu mashquulin masaaxiftan dadku waqafka ka dhigtay hala soo qabto hala akhriyo insha Allah taala marka dhib malaha ilaahay idinkii hadii aad ka akhrisato walow culimada qaarkood ay diidan yihiin oo waxay leeyihiin mobilka qur'aan waaye laakiin musaf qur'aan marka ma aha marka insha Allah taala dadka ka akhristana wax dhibaato mala inta diidana
ayaguna wax dhibaataa markaa kuma jiro jidmadooda insha allahu tacaala. su-aasha 12aad assalaamu calaykum sheekh xasan ibraahim ciise alla dartii ayaan kuu jeclahay. wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu. ilaahay ha ku jeclaada adigana allana ha ku xafido. sheekh waxaan u baahannahay inaad su-aashan iiga jawaabto talana aad iga siiso, taasoo ah hooyaday macaan waa qof aada u weyn 45 sano jir ah, ma weyno 45 oo caruur fara badan alla ku manaystay alxamdulilah. saas ay tahayna waxa ay iska dhigdhigtaa sida gabar shaab ah, macnaha waxyaabo alle uusan raali ka ahayn ayay samaynaysaa. tusaale waxa gabdhaha ay marsadaan iyo astur la-aan. sheekh dhowr jeer hooyo waan la taliyey wayna i habaartaa, waxayna igu dhahdaa afaarahayga ka bax. marka sheekh igana raali noqo, hadalkaygu aada u fara badan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. horta hooyo allah soo hidaayeeyo, sida aad sheegtay hadday tahayna ilaahay hidaayo fiican oo khayr leh allah siiyo subxaana wa tacaala. hooyo markay qofku noqotona ma aha inay sideedii ciyaalnimada ahaatee, waa inay ogaataa inay mas-uul tahay. adigase maxaa kaa saaran? adiga waxaa kaa saaran dacwo gudid. ibraahim calayhi salaam aabii uu la hadlay, si fiican buuna u waaniyey, weliba hab suluug oo yaa abati yaa abati yaa abati uu leeyahay. aqiira markuu u dhameeyey wuxuu yidhi, markii uu dhameeyey uu yidhi innii akhaafu an yamasaka cadaab min araxmaan fatakuuna lishaytaani waliyan qaala araaqibun anta can aalihatii ya ibraahim lain lam tantahi laarjumannak wahjurnii maliyan. haddaadan iga joojin waxaad aad igu wado dhagaxaa kugu dilaa buu dhahay, gurigana iga bax. waa la ceyriyey, admaba lagu ceyrininba, waxaa lagu yiri afaarahayga ka bax. marka insha allah inta si suluug oo asluubsan dacwada u gaarsii, qayla aydoon ahayn, qof nool waayo rajul leeyahay, ilaahay wuu soo hanuunin karaa subxaanahu wa tacaala. qofku in alal intuu nool yahayna lagama rajo dhigo, ilaahayna hidaaye khayr badan allah siiyo. adigana hadal fiican oo wanaagsan oo ludfi ah oo aad iyo aad u qiimo badan ugula hadal. wax kastay ku dhahdana loo qaban maayo hooyo, waa inaad ogaataa inay waali tahay, laakiin xagga dacwada aad iyo aad u wanaaji una soo dhowey. ilaa xaqa hana waafajiyo. qaybtii 30aadna meeshaas ayaan kusoo joojinaynaa. waa qaybaheeni su-aalaha youtube-ka sheekh xasan ibraahim ciise. waxaanana maanta qaadanay dufcadii ama xalaqadii ama qaybtii 20aad baan dhihi lahaa, raalli ahaada. qaybta 21aad ayaan haddana raacsiin doonaa haddii rabbi idmo. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.